munaasabad lagu xisaayo sanad guuradii afraad ee kooxda Power Stars oo kamid ah kooxaha heerka saddexaad xaafadda shacabka degmada 26 Juun ee magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay Hotel Baraar isla magaalada Hargeysa. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen bahda ciyaaraha Somaliland ayaa waxa ugu horeyn halkaas ka hadlay macalinka kooxda Power Stars waa Sharmaake Barre Nuux oo isagoo xafladda uga mahadnaqay qof kasta oo kala soo qayb galay sanad guurada afraad ee aasaaska kooxda Power Stars. Dhinaca kalena mas'uuliyiinta kala duwaneed iyo qaar kamid ah bahda ciyaartoyda dalka ayaa halkaasi hadallo dardaaran isugu jira u jeediyay kooxda Power Stars ee sanad guurada afraad qabsatay waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida tan. waxaad maanta taagantiin inaad hore uga sii dhaqaaqdaan insha Allah laba kaalmood oo kale way sugayaan inaad heerka labaad noqotaan iyo inaad heerka koowaad ee Soomaaliland noqotaan laakiin inaad akhlaaqad ku gaadhaan iyo dadaal badan oo naftiina gelisanaad ku gaadhaan tadorkaas ma dooranaya insha Allah Ilaahay dhaado taasna waxaan leeyahay dhammaan dhalinyarta inay dhiirigeliyaan dhalinyarta ciyaartoyda hore kuwa dambe inay dhiirigeliyaan waa muhiim oo ay si ay nololkooda u fiicnaado. kooxduna waxay haysataa laba magac oo aad u waaweyn Power iyo Stars wali idinkoo ciyaaraya maanu arag laakiin si halkan aad fadhidaan labaduba way idinka muuqdaan oo waxaan waxa weeyaan juhdi iyo dadaal iyo waxa lagu keenay maskax furnaan. Power kuna waa dadaalka Stars kuna waxa weeyaan waa dadka xidigaha ee la eegto weeyaan waqtigaanu ciyaaranay suurka iyo taygaar xidhantihiin maanu aqoon waxa kale oo aanu aqoon inaanu maxay sanad guuradayda aanu xusno marka xadaaradda iyo horumarka idiga muuqda waxa idin rajeenayaa insha Allah inaad guulo badan gaari doontaan. dhalinyarada sida quruxda badan isku soo agaasintay run ahaantii aad baan u hambalyeynaya ee aan cid gaarana ka helineen gacan saar insha Allah waxaan leenahay samir baynu tiigsanaynaa weyn helinaa sidkeen hadii Ilaahay ka dhigo. waxaan aad ugu amaanayaa naadiga Power Stars oo ay ka muuqato bilixaad u sareysa iyo tababarahooduba sida u soo abaabuleen xafladan iyo inta kale ka ajiibtay invitation cards loo keenay. waxaan aad idinku dardaarmayaa inaa ahaataan dad ku xidhan waalidiintood iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala cibaadadiisa suuban ee uu inoo abuuray. waxa kale oo muhiim ah oo aan idinku dardaarmayaa ka dhalinyaro ahaan inaad adeecdaan oo ka raalli ahaataan maamulkiina haddii ay tahay tababaraha haddii ay tahay tababar ku xigeenka maamulka kooxda ee ugu horeeya kabtanku halka waxa ku sugan goolkii Gabiley heerkii koowaad iyo heerkii labaad baa fadhiya oo iyaga laftooda kala soo maray ويقولون هاي عيدنا نعم داوي تراك صوق عليه ويجي مخرج فيه ما دين لا يمكن لا فديان marka koowaad iyo marka labaad waxaan u mahad celinayaa oo sharafna noo ah inaanu ka soo qayb galno oo nagu casuumo madasha quruxda badan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waananu ka gobol ahaan waanu jecelnahay inaanu ka qayb qaadano oo nu garab istaagno dhammaan meelaha sportska laga jecel yahay lagana soo dhaweynayo. kooxda dhalinyarada ay soo kacaysa quruxda badan leh waxaan leeyahay hugaagu kula martay sagaal Soomaali tira waxaan aad iyo aad horta Ilaahay waxa weey idinka baryaa in Ilaahay mustaqbal wanaagsan idinka idin gaarsiiyo. kubadun maaha nolosha rasmiga ah oo Allah ka cabsi ugu horeyso inaad mas'uuliin noqotaan inaad qarankan mas'uuliin ka noqotaan in Ilaahay idinka isu keensimo idinka iyo intii ku soo tacabtayba waxaan leeyahay Ilaahay mustaqbal wanaagsan dhalinyarada idin gaarsiiyo waxay istaahilaan wax la wixii la awooday la bixin kara ama waxa lagu deeq karo in xilnimada lagu deeqo annaga naadi ahaan dawladda hoose waxaan ku dardaarmaa aan soo jeedinaya insha Allah ama waxa ballan qaadaya 10 kubadood oo hay'ad marka hore tababar ku qaataan inaan naadiga dawladda hoose aan magaceeda qaadin taas waa mid oo wali aniga jeebkayga ah oo naadina weydiin cid kale weydiin inta wax ka badan aan awoodi karnaa insha Allah bin dalkan manaan la hagrneen hasa ahaatee alxamdulillah rabbil caalamiin ninka wax yar ku siiya wax badan oo ku siiya samarta abadimada marka waxaan caawa doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo hadalkayga sharaf iyo qurux iyo wanaag baa idinka muuqda dadaal baa idinka muuqda tusaalayaal nool oo cadcad baa halkan fadhiyo oo idin hortaagan aragooda iyo imaanshahooda inay wax kasta idinka qaalisan yihiin baan filayaa laakiin sababta aniga iyo inta facayga ah ee diridhaba iyo da'diisu intaan u nimi waxa weeyaan inaan anagu runtii idin mahadnaqno arrinka waan ku celinayaa si weyn bay ii taabatay si weyn oo aan qiyaasi karayn farxad igu leedahay caawana
inaan idinla joogo manaan maqnaadeen waayo in badan baynu sugayn inay gooshani timaado kooxda xidigaha awoodda magaca qaadateen waa magac aad u culus waa magac aad iyo aad u weyn waa magac si halkan laga sheegay sharaf sheegaya waa magac sheegaya inuu ka sarreeyo xidiguhu way brilliant way ifaan waxay ifiyaan ummadda waxay ifiyaan dadka xidigaa noqoteen oo xidigaa qaadateen ilaahay xidigaha idinka yeelo oo ay idin magaca qaranka Soomaaliland ay isla u qaadaan baan idinku ducaynaya maanta heerkii saddexaad baynu joognaa Britain inuu heerka labaad noqono maalinta ay dambeyn isu imanayno inagoo koobkii qaadnay oo kooxda koowaad ah inaynu isu nimaado baan ilaahay nagu rajaynayaa Axmed Taqaran wararka malcab magaalada Hargeysa